maamulaha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. 28 sano ee ay Soomaaliland jirtay waa markii koowaad ee ay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay xafiis ku yeelato degmada Ceelafeen iyo guud ahaan degmooyinka gobolada bari marka laga soo bilaabo Sheekh ilaa inta la gaariyo badan. taana waxa ku suntan oo aan si guud ugu hambalyeynaa xukuumadda maanta talada haysa oo garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa oo ku suntan furitaanka xafiiska iyo xafiiska degmada laga furay ee qalabeysan ee shaqaalaha loo soo magacaabay wasiirka maanta wasaaradda jooga wasiirinta jaamac xisigaani oo oran karo wasiir ka soo baxay shaqadii uu igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxay fulisay tiir kamid ah tiirarkii campaign-kii xisbiga barnaamijkii campaign-ka xisbiga kulmiye uu doorashada ku galay oo ahaa maamul daadajin. waa wasiirka qura maanta aan oran karo wuxuu gaarsiiyay maamul daadajintii dhammaan degmooyinka iyo gobolada bariga Soomaaliland laga soo bilaabo Sheekh ilaa iyo Daadmareer ilaa Caynaba ilaa Garadag ilaa Ceelafeen ilaa iyo Baran. maanta wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshadu waxay dhammaantood ku leeyahay xafiisyo heer caalami ah oo qalabeysan oo shaqaalahooda iyo qalabkooda dhan yahay. taana waxaan ugu hambalyeynaa oo mahaddeeda leh wasiirka maanta wasaaradda jooga wasiirinta jaamac xisigaani. qodobkayga labaad ee aan kaga hadlayaa shirkayga jaraa'id maanta waxa weeye waxa jira anigoo ah maamulihii wasaaradda waxaan inta la tacaalaynaa dhalinyarada reer Ceelafeen ee colaadaha iyo shaqo la'aantu ay ragaadiyeen. maalin kastana waxa taagan in shaqaale u shaqeynaya hay'adaha caalamiga ah ee ka mid yihiin Save Children iyo Care iyo gaadiid tiro badan iyo shaqaale tiro badan maalin kasta gobolka ka soo magacaabayo oo halkan la keenayo. annaguna subax kasta xafiiskayga ku dhawayeen dhalinyarada degmada Ceelafeen ee bilaamalka ee shaqo la'aanta annagoo ah hay'adda qaranka u xilsaaranay shaqo dhalinyarada u sameeyso waan la tacaalayno sidaan dadka u meelan lahayn ayaa maalin kasta waxaana haysta in shaqaale cusub gobolka laga soo magacaabo iyo gaadiid cusub ay dabada ka riixayaan hay'adihii dawliga ah ee gobolka ka jiray iyo ilaahay barso. waxaan leenahay hay'adihii dawliga ah sida u shaqeynayaan waxa la wada shaqeynaa anaguna aan la yeelanaa ma jirto cid alaale cid halkan iman karta iyadoo dadkii halkan joogay aan la jihayn waan shaqo abuur loo sameyn in gobolka cid laga soo magacaaba wax banaan ma aha waana sharci dar. qolada councilka degmada waaxdiisa arrimaha bulshada iyo anigoo dawladda dhexe halkan u joogo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada haysta arrinka hore waa nooga wada hadalay go'aan adag baa nooga yaala. waxaan ugu baaqaynaa shaqaalaha gobolka laga soo wado ee Save Children u shaqeynaya ee gobolka laga soo magacaabay gaadiidkooda ee Ceelafeen la doonayo in deegaamadooda ka shaqeeyaan iyadoo ay halkan aafooyin colaadeed ragaadiyeen oo dhalinyarada aqoonyahanka shaqo la'aan hayso. waxaan leenahay laga joojiyo arrinka kuwana shaqeyn meeno annagu amnigoodana ma qaadi karo hadarba cidda gobolka laga soo wado aan ahayn isku bedel hala sameeyo kuwii halkan joogay ee shaqo la'aantu haysay hala gaxeeyo gobolka hala geeyo hala keeno taa waan ogolahay. laakiin kuwayga oo la jahayn annaguna maalin kasta aanu dagaal ugu jiro sidii aanu shaqo abuur ku sameyn lahayn oo inta halkan ay iska joogaan la yaado kuwa kala dusha laga keenaya waxaan aqbali karana maaha. maamulka golaha deegaanka ee degmada Ceelafeen arrinka waan ka wada hadlay go'aan baa nooga yaala. waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan iskuulaasha wasaaradaha ee ugu horeeyay wasaaradda caafimaadka ee maalin kasta shaqaalaha gobolka ka soo magacaabay laga joojiyo dadka noocaas aan ahayn kuwa iyaga halkan joogana qaaligaamaha laga shaqaaleysiyo hala bedelo shaqaalaha kale hala keeno taa waan ogolaanayna. laakiin shaqaalaha iyaga oo halkan aqoonyahanka iyaga oo halkan dhooban oo bilaa camal ah oo colaado iyo shaqo la'aan ay ragaadisay ma aqbalayno in maalin kasta gobolada kale gaadiid iyo shaqaale kale nala kaga keeno. Mustafa Hanad wararka TV-ga Horyaal degmada Ceelafeen.